garqabayaashii ayaa mar kale waxaa la sheegayaa inay ku dhibaateeyeen muwaadiniin Soomaaliya qaybo ka mid ah dalka Koonfur Afrika. Fiidnimadii xalay ayaa waxay dhibaato u geysteen dukaan ku yaala deegaanka Khaliija xaafad isku raran oo ahayd hal su'aaleejooyin badan laga qaado burcadkana hooyi oo ahba booliskana uu sagelinaya xalay waxaa lagu dhaawacay muwaadin Soomaali halka mid kale lagu dilay kaamirooyinkii fiidiyoodii waa haynaa laakiin dabcan soo ma dhigi karna nimankan qoryaha iyo kala haada marka halkaas waxay ku dileen muwaadin Soomaali midna waa ay ku dhaawaceen xitaa dukaanka ayagoo dhacay ayaa la arkay nimankan ayaa la sheegay inay yihiin niman cusub oo la jaraadisa isla markaana dadka ku bilaabay inay dilaan marka hore inta aysan ba weydiinba wax kale dukaamo kale ay dhowr dukaan oo kala duwan ay tageen sida la sheegayo oo qaar ay dhaawaceen xitaa niman masaakiin oo Afrikaan oo Malawiyan oo iska shaqaysanaya xitaa waa ay waxyeeleeyeen oo qaar ayaa dhintaa la leeyahay marka arintani ayaa hadda waxay ku soo korortay deegaanka Khaliija dabcan inta badan nimanka kan tuugada marka ay wax inay dhacaan rabaan ama la jeenay soo doontaan ay rabaan waxay ku sameeyaan